laascaanood oo la circiraysa waa cusub oo u bariyay madaxda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ku wajahan saacadaha soo socda magaaladaasi amniga oo si adag loo adkeeyay iyo xogihii ugu dambeeyay wafuudda heerka caalami ah ee ku sii qulqulaysa gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaan daawadayaal muuqaalkan idinkula wadaagi doonaa laakiin intaan u guda gelin muuqaalka like sara si share garay oo la wadaag saaxiibada bogana follow sore si aad kaga mid noqoto saaxiibada ku xiran mahadsanida aynu ku bilawnay wararka ka imaanaya gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi laga dareemayo qabanqaabadii ugu dambeysay ee soo dhaweynta wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda dan qaran waxaana la filayaa in saacadaha soo aadan mas'uuliyiinta kala duwan ee filla Soomaaliya ay gaaraan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool gabi ahaanba magaalada wadooyinka waaweyn ee soo gala ayaa lagu xaqayaa boorar ay ku daabacan yihiin madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyadoo sidoo kale wafuud hordhac kulanka madaxweynaha uu ku tagayo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ee saacadihii la soo dhaafay halkaasi ay gaareen waxaa la filayaa xukuumadda dan qaran madaxda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale golaha shacabka iyo golaha aqalka sare ee baarlamaanka Jamhuuriyadda mas'uuliyiin ka socda in saacadaha soo aadan ay ka degaan gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool halkaasi oo ay kaga qayb galayaan caleemasaarka madaxweynaha taariikhiga ah ee maamulka waqooyi bari Soomaaliya Cabduqaadir Axmed oo Cali Firdhiye kaas oo taariikhda baal dahaba ka galaya kadib markii muddo 35 sano kadib uu magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool uu ka dajiyay madaxweyne jamhuuriyadeed iyo sidoo kale ra'iisul wasaarihiisa xukuumadeeda waxaana taasi ay u noqon doontaa arin baal dahaba u gasha xukuumadda uu hogaaminayo madaxweynaha maamulka waqooyi bari Soomaaliya Cabduqaadir Axmed oo Cali Firdhiye iyo sidoo kale guddoonka baarlamaanka golaha wakiilada maamulka waqooyi bari Soomaaliya waxaana hadda wararku ay sheegayaan in amniga magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool si aad loo adkeeyay iyagoo iska kaashanayaan mas'uuliyiin ka socda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo sidoo kale xubno maamulka waqooyi bari Soomaaliya qayb ka waxaana wadooyinka waaweyn ee soo gala gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool lagu arkayaa ciidamo fara badan kuwaasi oo baaritaan ku sameynaya gaadiidka dagaalka iyo sidoo kale gaadiidka dadweynaha waxaana la xaqiijinayaa amniga guud ee magaalada Laascaanood si amniga uu u noqdo mid 100% la isku haleyn karo isla markaana mas'uuliyiinta ka socota dowladda federaalka Soomaaliya ay u gaaraan gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa ay noqonaysaa markii ugu horeysay ee uu ka dago magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool isla markaana maamulka waqooyi bari Soomaaliya u caasimada waxaase markii labaad ay u noqonaysaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre kaasi oo isaga iyo mas'uuliyiin ka tirsan xukuumaddiisa dan qaran oo qayb ay ka yihiin wasiirka waxbarashada wasiirka gaashaandhigga kan arrimaha gudaha iyo sidoo kale kan amniga ay gaareen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool horaantii sanadkani 2025 ee dabayaaqada waxaana mas'uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya ee xukuumadda dan qaran ay halkaasi kulamo kala duwan ay kula soo qaateen madaxda maamulka waqooyi bari Soomaaliya ee uu hogaaminayay Cabduqaadir Axmed oo Cali Firdhiye kaasi oo xilligaasi ku guda jiray mujahileedkiisa gabagabada ee dowladda federaalka Soomaaliya oo 2 sano oo ku meel gaar u qabatay maamulka waqooyi bari Soomaaliya waxa uuna safarkii ra'iisul wasaaraha xukuumadda dan qaran ee Soomaaliya
uu gobol xaaray in maamul cusub laga yagleelo gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kaasi oo ay la riyaaqeen shacabka maamulka SSC Qaatumo musharaxiin kala duwan ayaa halkaasi ku loolamay iyadoo maamulada SSC Qaatumo iyo Maaqir lagu mideeyay halkaasi sidoo kaleetana loogu magac daray maamulka waqooyi bari Soomaaliya waxa ayna taasi muujinaysaa in beelaha wadadega gobolada Sool Sanaag iyo Togdheer ee maamulka waqooyi bari Soomaaliya ay ku heshiiyeen in halkaasi ay ka yagleelaan maamul cusub oo la magacaabayay waqooyi bari Soomaaliya isla markaana shacabkiisa ay heshiis ku yihiin dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaana maamulkani dadaal culus ku bixisay sidii ay uga yagleeli lahayd gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaana doorasho taariikhi ah oo ka dhacday gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ku noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee maamulka waqooyi bari Soomaaliya Cabduqaadir Axmed oo Cali Firdhiye oo 2 sano oo ku meel gaar ah soo ah madaxweynaha maamulka SSC Qaatumo waxaana taasi ay farxad gelisay gabi ahaanba shacabkii xornimo doonka ah ee maamulka SSC Qaatumo kuwaasi oo dhiig fara badan u daadiyay sidii ay isaga dulqaadi lahaayeen hiryada maamulka Somaliland ee Soomaali naceebka caanka ku ah isla markaana iskiisa ugu dhawaaqay madax banaanida daawade haddii aad soo gaartay dhamaadka muuqaalka like saara sii share garay oo la wadaag saaxiibada boggaana farow sore sidoo kale qaybta iyo YouTube-ka haddii aad inaga daawanayso kanaalka subscribe dhaho oo sidoo kale rukumo macluumaadka aan halkani ku soo gudbino oo gambaleelka furo mahadsanida